السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا حسن عبد الرزاق صلاة حسن شغنة برنامج كان مانتو حمرتي هيك قنعية مقعد عادي كان عبد الرزاق عثمان عبدي أبي لما قاعدين عبد الرزاق محمد عبد المياه عبد الرزاق عثمان عبدي أوكي سوري عبد الرزاق عثمان عبدي يس برنامج كان لما قاعد بحي أمر لها على شاح جبانه maanta waxay martii waa amar labaad ee qanciye wuxuuna ka yimid Uganda caasimada Kampala galabta waxaan ku soo dhaweeyay magaalada Nairobi saaxiib ku soo dhawow barnaamijka Hassan aad u mahadsantahay brother oo ku dhawaad barnaamijkan quruxda badan caasimada badan u soo agaasintay xaqiiqatan waan ku faraxsanahay inaan kaala qayb qaato programkaaga waxa waaye waan dhawahay bro waxa waaye wada dheeraas la soo maray ilaa Kampala ilaa Nairobi marka waa ku dhawahay barnaamijkaaga bro aad ma santahay waxaan ku weydiinaa marka ay ka qanciyay magaalada Nairobi inta corona lagu maqnaa ama dadkay ku jireen xagga lockdown ku jirtay mise Nairobi ku galay Hassan wallahi intii aan halkaas joogo lockdown-ka ay ugu dhacay meesha saaba ku xayirnaa iyaan dhan Kampala magaaladeedii waa Nairobi magaaladeedii waa waxa labada magaalo marba mid ba maaragtay imaada marka laakiin inta halkaas joogo buu maaragtay lockdown-kii ugu dhacay ma sha Allah ay ka qanciye waa ku maasantahay sida qayaha badan iyo qadarinta mintaqana barnaamijkan igu oglaatay kaamad celinay saaxiib maxaa isleedahay hadda mintaqana maadaama fanaan aad tahay mintaqana Uganda aad laga yaqaan waliba iyo Kenya heestaad u weyneedna waliba caalamku si bahday sida Soomaaliya East Africa iska dhigay ilaa Mareykanka Europe Soomaaliya joogta dad badan ay ku yaqaanaan heesas maxaa ku dhiirigeliyay horta inaad soo saartid asalkeeda maxaa ka dambeeyay anaa mintaqana inaad soo saartid Hassan waa maasantahay mar labaad horta heestaas Soomaaliya waxa igu dhiirigeliyay runtii anaga waxa iska nahay dad dhalinyaro ah oo maaragtay qurbahan iskaga nool gaar ahaan siiba heestaas waxa aad igu dhiirigeliyay waxa jira dhalinyaro fara badan oo maanta ku dhibaataysan adduunka dacaladiisa meel walba ay kala joogaan kuwa tahriib ku jiro oo maaragtay Liibiya iska joogo oo maaragtay dhibaato ku jiro wali wadankii oo wali amnigiisa si fiican uusan u fadhiisanin oo maaragtay dhalinyarada lagu laaynayo oo maaragtay waxyaabo maaragtay maanta aan dhalinyarada loogu talagelin ama maaragtay miisaankooda ahaan lagu sameynayo kuwa la dhahayo waa argagixiso kuwa la dhahayo waxbay dhaceen kuwa la dhahayo waxbay kufsadeen kuwa la dhahayo waxbay dileen qaar baa bijiif ah daas waa marka aniga aan u go'aansaday inaan hip hopkan uga sameeyo dhalinyarada inaan ku dhiirigeliyo wadankana aan ku amaano waxa waaye mar walba ceebaha hadii la faafiyo wadanka ceebihiis mar walba la qaado waxba ma hirgalayaan wax walba hoos bay sii ahaanayaan aniga marka ahaanteeda waxa aad igu dhiirigelisay taas waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta u baahan wax qurux badan oo inay arkaan dabcan way jiraan dhalinyaro aniga camal ah oo sida aniga u fikira ayagana aadaan horta ugu faraxsanahay sidii hore maanta waxba ma aha marka heestaas Soomaaliya dhalinyarada igu dhiirigelisay anigana ulajeedo gooniye kamaana lahayn only inay dhalinyarada isgarab siiyaan iswalaashadaan wadankoodana jeclaadaan baa maaragtay igu dhiirigelisay adoo sii wadato ereyada waxaa ka mid ahaa Xasan Cali Kheyra ku jiray madaxweynaha taa dalka ku jira Marana madaxweyne Farmaajo labadooda waa laba madax oo mintaqana dhalinyarada aad ugu mintaqana taageerto anaga kula hadlaayo madaxweyne Farmaajo waa taageera Xasan Cali Kheyra waa taageera inkastoo madaxda dalka xataa kuwii hore ka horeysaba aniga waligeyba waa taageeri jiray waana taageersanahay madaxda hore iyo kuwa hadda jiraba siyaasadna ku soo fogaan marabno waxa dad fan ku jiraanahay hadda isleedahay heeso miya macnaha heeso cusub miya jira hadda soo wadid arjeenis macnaha mintaqana aad dhalinyarada ku wacyigelisay wadanka laftirkooda mintaqana wadanka laftirkiisa wuxuu kaaga baahan yahay mugta taageero heeso wadaniin jiro maxaa ka leedahay arintaas
xasan aad u mahadsan tahay walaahi horto maasha allah dhalinyaro badan oo fanaaniina baa jirto oo macnaha maanta muusig ku jiro maanta dhalinyarada soomaaliyeed meeshii ay taagnaayeen shalay ma taagno waxay noqdeen dad miidiyakooda jiro dad maaragtay jecel nolosha dad waxay noqdeen horumarka raadinayo anigana wax diyaar u ahay horena aan uga dhawaajiyey mar walbeetana aan ku hamiyaa aan jeclahay dhallinyaradeeda inaan ku dhex jiro heese kheyro badan wadaniyada ka hadlaayo ama hip hop ha ahaado ama cultural songsba ha ahaadaan mar walba waxaan jeclahay dhalinyarada wax dhiirigelinaya heesaha marka hadda aniga ii qorshaysan ama aan jeclahay 2021 inaan soo fasaxo hadduu ilaahay nafta igu gaarsiiyo waxay u badnaan doonaan heese kheyraha wadaniyada inta badan aan dhanka wadaniyada isku fiicanahay oo macnaha markaa fanka soo bilaabayaba macnaha qaab cultural ahaa ku soo galay maantana waxaa ii hirgelay hamigay intaasoo sano aan ku riyoonayo oo ah in macnaha aan noqdo qof maaragtay wadankiisa mar walba amaana qof dhalinyaradiisa dhiirigeliya qof maaragtay murtidiisa dadka ay ka gadmaan aadaan ugu faraxsanahay midaas insha allah 2021 waxaan rajeynaa heese badan oo dhalinyarada soomaaliyeed dhiirigeliyo iyo wadankaba anigana waa magaalooyinkaygu maaragtay marba meeshaa rabaan iska adaa marka alxamdulilah hadda waxaa joogaa nairobi kenya dhalinyarada reer nairobi aad baa u salaamaya dhammaanteed waa jeclahay kuwa reer kambaalana aad baan u jeclahay ayagana waa salaamayaa kuwa wadanka ku noolna kaba sii daran kuwa adduunyadaas kale ku noolna yurub iyo amerika iyo daafahaas kale dunida ayagana aad baan u salaamaya okay ikay qanciye waxaan ku weydiinayaa fanka markaad soo gashay ama aad ku jirtay waxyaalaha caqabada miyaa kala kulantay as leedahay walaahi xasan aad u mahadsan tahay fanka horta runaantii caqabad wax walba caqabad way leeyihiin adduunyadan ani ahaanteedana horta ma dhahay fanka caqabad kale maana kulmin fanka caqabadihiisu iska badan yihiin caqabadana waa kala kulmay inkastoo maaragtay maanta wax hadda inta laga sheegi kara ama laga faahfaahi kara aysan ahayn laakiin hal iyo laba haddaa ka taabto samaha waxaa arkaysaa hees baa soo saaraysaa heesta cadowna way kuu samaynaysaa taageerana way kuu samaynaysaa caqabadaha kala kulmay waxay ahayd waxaa arkaysaa samahaw dad iska kaacaynayo waxay kuga caynayeen aad garanaynin qof shalay ku ammaanayo haddana waxaa arkaysaa ku caynaya maanta marka samaha caqabadaha ugu waaweyn waa kuwaas sida kale fanka run ahaantii waxaa jirta wax taalanti la dhahayo iyo wax adiga u dhalatay oo micnaha unique ah run ahaantii ani fan unique uma lihi qaraabadeeda iyo dadkii hore iyo dadkii dhaxabo awooyaasha iyo abuulankeyba wax fan micnaha sheegta ma jiro by the way laakiin talent only waan bartay ani talent ahaan waa waxa ilaahay igu hibeeyey marka waan bartay aan dhihi karaa dabcan marka caqabadaha markaa soo galay waa kala kulmay dhanka muusiga dhanka isheeg markaa raadinaysid inaad magac yeelato waxyaabo badan waa lagugu adkeenayaa somehow programyada qaar kama qayb heestaa samaysay dadka bulshada intay dhex gashay dhegaystay ugu daran oo fal celiyatay ahayd horta heesta ugu saameynta badneed Soomaali Toostasay ahayd Soomaali Toostas caqabadaha kala kulmay waxay ahayd in YouTube-ka laga saaro ugu yaraan 3 days gudahooda 4 mar 5 mar 6 mar camal YouTube-ka laga bixiyo waxay igu ahayd wax la yaab badan runaantii amazing one month inay hawada ka maqneed haddana dib loo soo celiyey horta waxaa waaye taas waa meesheedu dib inaa usoo celiyey maanta maraba sheekadaas alxamdulilah waa inaa YouTube-ka kusoo celin waa ku guuleysan ugu dambeyntii by the way laakiin waxa igu saameynta badnaa waxay ahayd heestaas viewska aan ka rabay inay yeelato iyo meeshay gaari rabtay in dad cadowa ama xasidiin ah ay dhab siiyeen ama ay ka celiyeen run ahaantii YouTube-ka waxaa jirto report wax la dhahay somehow ugu yaraan 100 qof oo kaleeto haddii report ku siisoo kaleeto YouTube-ka asiga naftarkiisa kula dagaalamayo adoo videogaaga la heestaadi leh aa lagula dagaalamaa somehow marka caqabadaha ugu weynaa aan kala kulmay heestaas ay ahayd barnaamijkeeni waa gabagabo waana ku mahadsantahay walaalkay ka qanciye barnaamijka magaciisa waxaa la yidhahdaa lasha xaasjey ama xasan cabdirasaaq ama saa u taqaana xasan jawane whatever waan kaa mahad celinayaa ak mar saddexaad iyo mar labaad iyo mar afraad iyo mar shanaad barnaamijka ay gala qayb qaadatay barnaamijkeena waxaan kusoo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu see you soon insha allah thank you